kula wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Waaruf TV iyo waliba sidoo kale Wargeyska Times ku soo dhawaada falanqeyn kooban aan ku eegi doono ciyaaraha gobolada deegaanka Soomaalida oo markii 12 ka socda garoonka kubadda cagta ee Chichiga Stadium kulamo xiiso badan ayaa socdo gaar ahaan kulankan hadda socdo waa kulanka groupka koobaad oo dabcan ay ugu soo baxayaan labada kooxood daawa iyo qorraxay ciyaar aan dabcan xarakad iyo xiiso badan oo saas aan lahayn maadaama labada kooxood ay soo baxeen isla markaasina ay waqti hore xaqiijisteen laakiin kulamada bari iyo ciyaarta ayaan qiimeyn doonaa soo dhaw marka la kulan wanaagsan baan ku leenahay bal si guud tartankan ciyaaraha gobolada iyo dabcan waxyaabaha aad leedahay sanadkan way ku cusub yihiin aad iyo xoog wariye daahiraad baad ma aasan tahay mucallaqaynta badan codadkiisa ku soo gaadhay ciyaaraha sida afsamida looga socdo deegaanka Soomaalida gaar ahaan garoonka kubadda cagta magaalada Chichiga daahiro hadayna si guud kormar u sameeyno koobkani wuxuu gabiyaanba ka duwan yahay koobashii hore looga soo ciyaaray deegaanka marka la eego iyadoona marka la eego dhanka ciyaaryahanada iyo sida la isugu hub urursaday aad dareemayso awoodda uu leeyahay gobolka Saba sida suuqa u galay ciyaaryahanadu isleeyahay koob bay ku qaadaan magaca gobolka kor u qaadaysaana way ka dhex muuqdaan sanadkan kulamo aad u qurux badan baa la soo ciyaaray gruubo ayaa kulay jira gruub kastaaba kulay waxaan maleynayaa gabagabo ayuu ku dhow yahay oo laba xul gobol baa ka soo bixi doona hadda si guud hadaynu eegno maanta gruubkan waxa wada ciyaaray ciyaartii hore gobolka Shabeelle iyo sidoo kale gobolka Afdheer iyadoona ay gobolka Afdheer ugu awood sheegatay laba gool iyo gool oo halkaas ay guusha kulay ay ku raacday gobolka Afdheer sida wariye daahiro aad sheegtay hadda waxa socoto ciyaar u dhaxaysa gobolka sidoo kale qorraxay daawa ayaa gool leh walow qaybtii dambe ciyaarta lagu guda jiro daahiro si guud marka loo eego kulamadii la soo ciyaaray kulankan maanta xaaladoodu waa sidaas bal si guud markaan eegno groupka koobaad oo kale aan ka bilowno waxaan soo aragnay in daawa iyo City soo wada ciyaareen Liban iyo waliba soo kale qorraxay soo wada ciyaareen bal groupkan hadda waxa banaanka yaala labadan gobol ciyaar adagna bari bay dhici doontaa u dhaxayso gobolka City iyo waliba soo kale gobolka Liban bal ciyaartaas ka waran maxay ku muuqataa barina halka la iska rifi doona ciyaarta bari City waxa uu tahay aad bay muhiim ugu tahay inay badiso dadaal kulay waxaan maleynayaa inay City dhankeyga unan u hari doonin haday noqoto shaxda uu sileeyay macalinku dhibaha garoonka waad ku qaadi doontaa iyo sidoo kale ciyaaryahanada daahiro si guud hadaan eegno kulankaas waa kulan aad u adag marka la eego natiijada ku xidhan gobol kasta waxa ku xidhan joogitaankiisa ama tagitaankiisa marka kulanka bariya waa kulan loo wada dhaniyo dhabta taagayo waa kulan taageerayaasha iyo cid ka soo macaashiqiinta kubadda cagtiba ay sugayso daahiro go'aatay labada kooxood midkii laga badiyo ayaa boorsadaha qaadan doono City hadii laga badiyo way bixi doontaa Liban hadii laga badayna way bixi doontaa walow fursad City haysato in barbaro kulanka haday gashay soo bixi karto groupka geerida groupka la isrifay groupka koox walba dabcan ay isku dhagan yihiin groupka labaad Dolo Charar Faafan iyo waliba Nogob qarash qodob meesha joogto marka laba ciyaarood oo adag baa dhici doono waxa weey Dolo iyo Faafan Charar iyo Nogob balan ku horeyno dabcan sida sharciga markan kubadda cagta yeelana markii labada kooxood afarta kooxood isku dhibcaan noqdaan hal saac baa la wada ciyaarsiyaa laakiin waqtiga iyo waliba sidoo kale awoodda garoomada oo deegaankeenu aad hooseysa ayaa noo saamaxay yani in hal saac la wada ciyaar laakiin waxa dadka qaar kood aragtaan soo jeedinayaan in har la geeyo kala hal ciyaar oo har lagu soo ciyaar hal ciyaar halkan hal ciyaar ay dabcan ay si toos ah wada socto bal han qaadano kulanka Dolo iyo Faafan oo waa kulanka sida gaarka isha loogu hay bal kulanka ka waran daahiro wariye daahiro sidaas sheegtayba wadamada horumaray ciyaaraha marka la eego sida Premier League oo kale waa runtahay oo markii ay sidan oo kale ay timaado isku waqti baa la qabtaa garoomo kala duwan baa si live ay taageerayaashu uga kala socdaan si gobol kastaaba taageerayaashu ay ogaadaan natiijada ciyaarta kale ee dhinaca kale ka socota si hadii ay laga badiyo ay ula dabaaldegaan isla gobolkooda ama kooxdooda marka daahiro saas sheegtay isku waqti weeyaan waana isku groupka geerida markii u horeysana groupkan waa la sheego waa la isku raacay inuu groupka geerida yahay marka kulli waxaan maleynayaa maamulka kulli xafiiska dhalinyarada ciyaaraha ay u yeelaan isku mar la soo deyn doono in sidoo kale sidaas sheegtay diriska loo qeyla dhaami doono oo kulli heer la tagi doono halka lagu soo ciyaari doono halkaana kulli waxaan maleynayaa deegaanada inta badan aaladaha social media iyo sidoo kale aaladaha live-ka deegaanka ugu horeeyay inuu nahay taasi laftigeena in dhacayn baa laga yaabaa laakiin bal sida kale u maareeyo waynu eegaynaa laakiin xagga hadii aynu eegno bari kulamada la ciyaarayo daahiro kulan buu ka daran yahay gobol buu isleeyahay natiijada waxa weeyaan bari toole qacantaada inay soo gasho muhiim bay u tahay marka hadaynu eegno Faafan iyo hadaynu eegno Charar iyo gobolada ay la ciyaarayaan midkoodna ma sahlana waatay waxaan qaadanaynaa kulankii waxaan dib ugu noqonaynaa Charar iyo Dolo
bal ciyaaryahan Cabdi Xafiid baa garoonka Jigjiga Stadium sanadka ka qayb galayo xasaasi ayaa joogo Santos baa joogo bal markaad eegtid dhalinyaradan iyo kooxdan sida gaarka suuqa uga gadatay awoodeeda qaladaadkii kulamadii kala dhacay iyo hadda wariye daahir oo sidaas eegtay kulankii ugu horreeyay gobolka Jarar wuxuu gabi ahaanba la kulmay guul darro una filayn iyadoona gobolka Jarar sanadkan lagu xanto inuu yahay kulli gobol suuqa maaliyadiisa u furay si waxa weeyaan koobkan magac iyo sumcad wanaagsan koobkan uu qaado marka Cabdi daahir oo eegno kulankaasi gabi ahaanba bilowgii wuxuu ku furtay in gobolka Jarar afka ciida loo daro yaab iyo ama kaag bay ku noqotay mucaashaqiinta kubadda cagta iyo sidoo kale hadii la yiraahdo gobolkii lacagta inta la geliyay inta marka laga yimaado kulankii dambe ayaa waxaad moodaa macalinka gobolka kulli Jarar inuu wax badan ka bartay shaxdii uu ku soo galay ciyaaryahanadii uu wada ciyaarsiinayay iyadoo kulanka hadii aan dib ugu yara laabto uu ku wada bilaabay ciyaaryahana haliska marka la eega dhaxda sida Mahad Afro sidoo kalena ciyaaryahan Musa Dambela xasaasi Santos dhamaantood culays bay isku wada ahaayeen ciyaaryahanka sabab muusan helin fursad uu ku helo inuu weerarka waxa weeyaan uu kubadda u gaarsiiyo difaaca inuu caawiyo kulankii u dambeeyay sida macalinku si ka duwan buu sameeyay wuxuu ku soo bilaabay Musa Dambela iyo sidoo kale Mahad Afrikaan iyadoona dhaxdu ahayd mid aad iyo aad horumar ballaaran uga muuqdo marka la eego kulanka ka horreeyay marka waxa la oran kala kulankii u dambeeyay Jarar hadii lagu qiimeeyo Jarar jaanta iyo jiibtaba way isla heshay kulan aad u qurux badan waliba guul qiimo lana way gaadhay bal saadaali kulankan Jarar iyo Nogobal ka war kulanka ayaa badan kale ku ratay saadaashu kulli ma aha wax hadii aan aniga qiimeeyo oo dhinacayga saadaashu kulli ciyaari ay soo ciyaareen ma ku saadaaliyaan ku qiimeyn karnaa waxaan leeyahay aniga ahaan waxa awood badan oo kulli awoodeedu iska xaadirin doonto kulanka 3 dhibcood aan isleeyahay gobolka Jarar faafan iyo Nogob doolo faafan iyo doolana waxa isleeyahay doolaad ka doonto yey kula tahay marka si guud markaad fiirisid ciyaarahan hadda yeestay kooxda ugu awoodda badan ee sanadka aad leedahay alaleey meel fiican bay gaari doontaa aad leedahay والله daahiro sanadkan lama kala lalaado laakiin haddana waxa la eegaya performance-ga iyo koox kastaba awoodeeda iyo inta fadhiyada iyo bilqaab ciyaareedka la eegayay kulli way jiraan kulamaan aad kooxaha gobolans leeyahay kulli gobolkan daawo kala awoodiisu ma sahlano sidoo kale gobolka Jarar oo kale lama sahlisan karo sidoo kalena gobolka Qurxay afdheer oo kalena kulli waa runta dabcan afdheer oo kalena iyadna aad awood badan tahay maanta waxaad arkaysay inay laftigeedu awood garoonka ay ku muujisay dabcan waata intaasaynu ku soo koobaynaa falanqayntii koobneed ee ku aadanayd kulamada ka dhacaya garoonka kubadda cagta Jigjiga Stadium oo meel xiiso la marayo berina kulamo waaweyn ayaa jiro halkan ayaad kala socon doontaan waxa si gaar barnaamijka ama warbixintan noogu falanqaynaya saaxiibkay Axmed oo kamid ah dabcan dhalinyarada sida gaarka ee waqtiga u galiyay soo tabin lahaayeen ciyaaraha iyadoo dabcan qof walba gurigiisa jooga si toos ah uga daawan karto isla markaasina sidoo kale warbixinadii wararkii ugu dambeeyay aad ka heli karto wargeyska Times dhamaanteen isku dawxad leenahay nabadii